بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب إله مادله نو سورة قليل مانتنا نفلة أنكسو غيب قلنو أنه كافتر سيمين الإسلام والإيمان وحمد بالله نسكله مامل كيو معلمين تا سكول كان هو معلم ذلك يوجد بدن بحيي sababto adana maanta anaga halkan ku joogno waalidiintii qiimaha badnayd ardadoodu suurtageliya macruurtoodu suurtageliya inay wax bartaan ayaa iyagana mahadaas balaaran iska leh waxa mahad balaaran iska leh sidoo kale ardayda iskuulka huudow macallin wax ka baranayso iyagana aadan ugu mahadinaynaa waa ku xasan dadani qiimaha badan mudnaanta leh dad waana ku dhownahay inta kadib xafladaha meelaha kala duwan aan ka qayb galay ayno badan tahay midda huudo qabanayo meel farxad gaarna meel meeshii ugu mudnayd weeyaan macallimiinteen marka waa ku mahadsantihiin ardaydeena iyo soo dhaweyntiinaan aadaan ugu faraxsannahay qiimo weyn waan idin haynaa farxadda maanta aad bay noo farxad gelinaysaa qalbigaana ka faraxsannahay marka dadaalkan iyo juhdigan iyo bilicdaan ay socoto reer Mareerey waan ugu mahadinaynaa inay sii wadaan ay joogteeyaan ilaan shay walba qiimo badan inuu sii jiro waxay ku xiran tahay in la joogteeyo dadaalkii la bixiyo juhdiga la bixiyo macallimiinta dadaal fiican ay sameeyeen meel fiican ay wax soo gaarsiiyeen laakiin baalal ay ka duulayaan hadaysan helin baalashana waa waalidiinta baalashii iyaga hadii laga waayo bala duuli karo iyagana garabkooda inay istaagaan juhdi iyo dadaal badan la bixiya maanta halkaan aan ku taaganahay aan ku soo gaarnay macallimiinta waxay tusaale u yihiin dad haday ishilqaamaan go'aansadaan inay deegaankooda wax u qabsadaan isbedel sameeyaan inay sameyn karaan oo maanta xaaladda uu iskuulkan huudow macallin uu ku sugayahay ayaa tusaalna oo ardayda kuwa carabi jeedinay kuwa ingiliis jeedinay kuwa tafsiir jeedinay iyo noocyo kala duwan ay leeyahay ayaa tusaale waa dadaalkooda iyo juhdiga ay bixiyaan runtii waa waxaan la soo koobi karin bulshada ishilqaantana heerkan iyo nidaamkan oo kala la gaara waan ugu mahadinaynaa macallimiinta qalbigan idinku ognahay hadii qof taalo dad loo dhisay waxa loo dhisay mudan yihiin macallimiinta iyo maamulka huudow macallin ay mudan yihiin waayo dad aqoon-yahan ah wax soo bartay markay wax baranayeen iyaga dhaqaale isku bixiyay ay wax soo barteen deegaankooda ku soo noqdeen meel aan bilow lahayn ay bilow ku sameeyeen si bilaash ahna caruurtooda ay wax ku bareen runtii waa dad tusaale mudan oo taalo mudan weeyaan waan ugu mahadinaynaa markastana garabkoodan taagana waan garab istaagaynaa iskuulkan huudow macallin dadaal badan soo galay qof walbana dhinac uu ka soo galay anaga ka ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo doos ahaan ama shakhsiyan anaga xoog waxaan saarnay saddex arimood in iskuulkan koo wasaaradda yaani laga gado oo la ogeysiyo oo yaani ay ogaadaan horta wasaaradii in iskuulkan jiro arday dhalinyaran ishilqaantay dadaalna uu jiro waa la gaar ilaahay maxadis maanta taas waa lagu guuleystay iskuulka maanta wasaaradda maamulaysa waana guul la gaar iskuul public uu noqday law waxaan juhdi saaraynay inaan faqaaraha ka gadno adduunka meel kasto iyo hay'adaha aan ka gadno aan dhaano war iskuulkaas horta hal la aqoonsado waxa uu maleynaa gobolka Shabeellada Hoose iskuulka uga caansan inuu yahay hadda huudow macallin taasna waxay ku gaartay gadid meel la gaarsiiyay ahayd marka dadka iskuulkan huudow macallin ka dambeeya ah dad nool jiro oo meel kasta ay ka jiraan oo markastan sidaas waa indhaha deegaankan la fiirinayo iskuulka huudow macallin weeyaan dadaalkaas iyo juhdigaas inuu sii socdaan rajaynayna waalidiinta waxaan ka codsanaynaa in dadaalkan socdo garab u noqdaan caruurtooda geeyaan ku dabagalaan macallimiinta garab istaagaan culeysyada iskuulka soo wajahayna ay garab igaashaan u noqdaan maanta muhiim inay idin ahayd waxbarashadu waa waalidkii hadda inta soo istaagaya sheegayo bal haddii aad faleebo u baahatid ama irbit inaad isdurta u baahatid inaad rafaad badan aad maraysay maantana caruurtaada ay wax ku taqaanto qof walba gurigiisa qof ugu jiro ama dariskaada qof ku joogo ii duraa dhehaysaa faa'iido weyn way maanta ah helnay caafimaadku waxa ugu muhiimsan qofka bini'aadamka la soo gudboonayo waay haddii aadan gargaar degdeg ah helin
waa u dhimanaysaa gargaarkaas degdegan waxaa ku heli kartaa qof wax bartay inaa heshid waay marka qof wax bartayna maanta waa lagu sameeyo runtii waa dad ammaan mudan way macallimiinta dadaalkaas socdo intifaacaas socdo juhdigaas socdo waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay garab buuxa u noqdaan oo ay garab istaagaan oo ay garabkooda noqdaan macallimiinta iyo maamulkaasi runtii waxbarashada muhiim waaye muhiim inay u tahay bulshada dhalinyaradan waxaan ku waaninayaa aan ku dhiirgelinaynaa inay waxbarashada iyo dadaalkaas sii socdo ay qayb ka noqdaan aysan ka harin si hoose iyo si koraba fagaarahan oo kale waan ugu sheegnaa fasalada waan ku booqanaa waan u sheegnaa waan ku dhiirigelinaa inay waxbarashada muhiim u tahay quruxdan iyo isu imaatinkan iyo bilicdan maanta waxay ku timid aqoon la bixiyay ku imid haddaysan aqoon lahaan leen aysan aqoon isugu imaan leen bilicdan ma jiri leen mana socon leen marka macallimiintan waxaan leeyahay dadaalkiina iyo juhdigiina wada markasta caqabaad way jirayaan markii aad iskuul maamulaysid ama arday wax baraysid dadyow kala duwan dabeecado kala duwan leeyihiin oo jinsiyad kala duwan leeyihiin nooc kasta ay leeyihiin waay dulqaaday mudan yihiin haloo dulqaato hana la sii wado taasaan ugu dardaarmaya aadaan umahadsantihiin warkayga meeshaasaan ku soo gaabinaa maanta hadal badan ma kari karno farxadda iyo raaraanta jirto ayaa hadalka biluminaayo waxaan jecelnahay marka dadkii dadaalada bixiyay juhdiga bixiyay inaan awaalmarino shahaado sharaf aan siino mudnaantoodii macallin wax lagu awaalmariyo waxa ugu weyn waxa weeye shahaado sharaf ay qiimo oo baal dahab u galayso oo yaani shalay meeshaasaan ka soo shaqeeyay juhdigaasaan soo sameeyay ka ururka doosi ahaan marka macallimiinta waxaan siinaynaa shahaado sharaf maamulkan siin doonaa dadaan noo jiri doono insha Allah shahaado sharaftaasaan bixinaynaa waana ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddex inaan idin kala soo qayb galno aad ma santiin salaamu calaykum waraxmatullaahi